السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada saaxiibayaal muuqaal cusub. xilli waxbarashadeedka dugsiga sare waa marxaladda ugu muhiimsan ee soo mara arday walba, waana buundada isku xirta heerarka waxbarashada hoose iyo tan sare ee jaamacadda. Si aad ugu gudubto heerka sare ee waxbarashada jaamacadda, waxaa qasab ah inaad ka gudubto imtixaanka dugsiga sare, buundo fiican aad ka keento. Sida aan la soconno, usbuuca nagu soo fool leh waxaa dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir imtixaanka shahaadiga u fariisan doona fasalka Form 4. muuqaalkeenana maantana waxaan kugu soo gudbin doonaa talooyin aan u arkay inay muhiim u tahay ardayda imtixaanka u fariisanaysa ka hor inta aysan gelin imtixaanka. haddii ay ku dhaqmaanna ay ku guuleysan doonaan imtixaankooda insha Allah. ku soo dhawaada mawduuceena maanta. soo dhawaada mar kale. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. waxaan kaaga mahadcelinayaa la joogaaga. talada koowaad: ka fogow wax walba oo ku mashquulin kara. taladan koowaad waxaan ugu soo hormariyay muhiimadda ay leedahay darteed. ka hor inta aadan bilaabin akhrinta iyo isku diyaarinta imtixaanka, isku day inaad ka fogaato wax walba oo ku mashquulin kara, sida inaad ka fogaato telefoonkaaga gacanta iyo dhammaan aaladaha kale ee aad haysato, kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad gasho baraha bulshada ee kala duwan, kadibna waqti badan kaaga luminaya. talada labaad: waqtigaaga nidaamso. waxaa habboon inaad nidaamsato waqtigaaga ka hor iyo inta lagu jiro imtixaanka, adiga oo adeegsanaya jadwal ah maalin walba iyo saacad walba maadadii aad akhrin lahayd ama aad ka shaqayn lahayd. waxaad adeegsan kartaa buug iyo qalin, adiga oo ku qoraya shaqooyinka aad rabto inaad qabato iyo mid walba waqtigii aad ugu talagashay. sidoo kale waxaad u adeegsan kartaa waqtiyeynta shaqo walba mobilkaaga. sidaan ognahay, mobiladu waxay leeyihiin qayb aad ku maamulin karto waqtiga hawl walba oo lagu magacaabo timer, waxayna ku dhex jirtaa qaybta saacadda. haddii aadan hore u ogeyn timerka waxa uu yahay ama aadan hore u isticmaalin, hawalwelin, hadda ayaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo. waxaad soo furtaa mobilkaaga smartphone-ka ah. waxaad gujinaysaa ama aad furaysaa halka ay ku qoran tahay clock oo ah halka laga maamulo saacadda iyo sidoo kale gambaleelada ama alarmiga. marka aad furto clock, waxaa kuu soo baxaya sidan. waxaad dooranaysaa timer halka ay ku qoran tahay oo dhanka midig ah. waxaad halkan ka bedelaysaa waqtiga aad rabto maadadaas ama hawshaas aad qaban lahayd. sida kuu muuqata, waxaad u jeedaa saacaddii, daqiiqadii iyo sekanadii. hawsha aad rabto inaad qabato ama maadada aad rabto inaad akhriso xilliga aad ugu talagashay ayaad dooranaysaa. haddii aad daqiiqada rabto, daqiiqadahaas ayaad ku buuxinaysaa. haddaad 30 rabto, tusaale ahaan 30. haddaad 22 rabto, 22 daqiiqada aad rabtaa ka dhiganaysaa. haddii aad saacad rabtona sidoo kale saacadda ayaad ka dooranaysaa. marka aad dooratid kadib waxaad leedahay start. waxaa xusid mudan in haddii waqtigii aad ugu talagashay maadadaas uu dhammaado, uu ku xusuusinayo in hawshaas waqtigeedii uu dhammaaday. waxaan kaaga digayaa in aadan ku talax tegin telefoonka marka aad isticmaalaysid timerka. yacni waxaan ula jeedaa yaysan kula tegin isticmaalka telefoonka adigoo oo galaya baraha bulshada ama game ku ciyaaraya. talada saddexaad: qaado nasasho joogto ah. maskaxda bini'aadamku waxay u shaqaysaa sida ugu fiican marka la siiyo nasiino ku filan. waxaa la xaqiijiyay in waxbarashada waqtiga gaaban isla markaana leh nasashada joogtada ah ay ka waxtar badan tahay midda uu qofka saacado dheer oo aan nasiino u dhaxaynin uu waxbarto. in aan nafteena ku cadaadino waxbarasho marka ay hurdaysan tahay ama ay daalan tahay oo aysan firfircoonayn, wax natiijo ah kama helin. sidaa darteed, markaad dareento daal iyo caajis, waxaa habboon inaad nasiino qaadato adiga oo sameynaya wax walba oo aad caajiska isaga qaadi karto. tusaale, jimicsi ayaad samayn kartaa, socod ayaad u bixi kartaa, ama sida dadka qaar, telefoonkaaga aad ku isticmaali kartaa wixii aad jeceshahay sida inaad game ku ciyaarto iyo wixii la mid ah. laakiin waxaa muhiim ah in bareega ama nasiinada aad qaadanayso uu waqti leeyahay. waxaadna isticmaali kartaa timerka telefoonkaaga ku jira sidaan wax yar ka hor soo sheegnay. talada afraad: seexo waqti kugu filan. ha iloobin inaad qaadato ugu yaraan 7 saacadood oo hurdo ah ka hor imtixaanka. xusuusnow, imtixaanku ma ahan ciqaab, ee waa in la tijaabiyo awoodda fikirkaaga iyo xusuustaada. marka haddii ay hurdada kugu yaraato, waxaa laga yaabaa in markaad imtixaanka u fariisato, waraaqadahana lagu harkeeno aadan awood u yeelan inaad si fudud kusoo xasuusato wixii aad soo akhrisay. inta lagu jiro hurdada, maskaxda iyo jirka bini'aadamka ayaa si buuxda u nasanaya si ay u soo ceshadaan tamarta iyo xoogga ka baxay. dadka qaar ayaa laga yaabaa inay doorbidaan inay wax akhriyaan habeenka qaybtiisa dambe, halka kuwo kalena ay jecel yihiin subaxa hore. si kastaba, iska hubi in jadwalkaaga hurdada uu saxan yahay, jadwalna u samee oo ilaali nidaamka hurdadaada. talada shanaad: biyo badan cab. mid ka mid ah talooyinka ugu muhiimsan ee maalinta imtixaanka ayaa ah inuu ardayga cabo biyo aad u badan.
taasoo la sheegay inay ka caawiso ardayda in ay maskaxdooda si firfircoon u shaqeyso. cilmi baaris ay samaysay jaamacadda East London oo ku taala dalka UK ayaa waxa ay sheegaysaa in ardayda caba biyaha ka hor iyo inta lagu jiro imtixaanka ay helaan 5 ilaa 10% natiijo ka sarreysa ardayda kale ee aan cabin biyaha. marka ku dadaal inaad cabto biyo badan marka aad isku diyaarinayso iyo inta aad ku jirtaba imtixaanka. talada lixaad, markaad imtixaanka u fariisato wada akhri su'aalaha imtixaanka. si qoto dheer u akhri su'aalaha imtixaanka iyo tilmaamaha kale ee warqadaha ku qoran adigoo isku dayaya inaad fahamto awaamiirta qayb walba. ha ka shaqayn imtixaanka adiga oo aan si qoto dheer u akhrin una fahmin instructionska qayb walba. haddii ay kugu soo baxdo su'aal adag, waxaa habboon inaad u gudubto su'aal kale, laakiin iska ilaali inaad ilowdo su'aasha aad ka gudubtay sida inta badan ardayda ku dhacda. talada toddobaad, ha ku degdegin inaad warqadda imtixaanka dhiibto. waxba yaysan ku qalqalgelinin haddii aad aragto ardayda qaar oo waraaqadaha imtixaanka dhiibaya. muhiimadaada ma ahan inaad dadkaas raacdo, ee ujeedadaadu waa inaad imtixaanka ka shaqaysatid. waxaad ogaataa inaysan jirin abaalmarin gaar ah oo lagu bixiyo qofka ugu hor dhiiba imtixaanka. talada siddeedaad, ha ka faalloonin maadada imtixaanka kadib. markaad imtixaanka ka soo baxdo, ha ku mashquulin inaad ogaato in jawaabaha aad soo qortay ay saxan yihiin iyo in kale, maxaa yeelay taas waxay kugu keenaysaa walaac fara badan. inaad ogaatana micno gaara kuuma samaynayso, waayo ma haysatid fursad kale oo aad dib ugu soo saxdid. marka iska ilaali inaad qiimayso naftaada iyo imtixaankii aad soo gashay. taa beddelkeeda, diiradda saar imtixaanka xiga ee kugu soo socda. ugu dambeyn, haddii aad ka mid tahay ardayda imtixaanka u fariisanaysa, waxaan kugula dardaarmayaa qodobadan soo socda. qodobka koowaad, usbuuca imtixaanka xilli hore ka kac hurdada, iskuna diyaari imtixaanka si aad u gaarto goobta imtixaanka waqti hore. haddii aad koox ku baxaysaan sida ardayda iskuulka oo uu bas idiin kiraysan yahay, ku dadaal inaadan ka daahin baska. haddii aad keligaa tahayna, isku day in 1 saac ka hor saacadda imtixaanka aad xaadir ku ahaato goobta imtixaanka aad ku galayso. qodobka labaad, ka taxadar dhammaan agabka looga baahan yahay imtixaanka sida ID kaarka, uniformka, qalimaan dhowr xaba ah adigoo isticmaalaya qalinka hal nooclaha ah iyo wax walba oo aad uga baahan tahay imtixaanka. waxaan rajaynayaa inaad wax uun ka faa'iiday muuqaalkan. gaarsii haddii uu jiro qof imtixaanka galaya si uu uga faa'iidaysto. mahadsanid. intaas ayuunu ku egyahay mawduuceena maanta. intaan ku kulmayno mawduuca xiga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.